kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii xog waran iyo maanta waa maalinimo Isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 10 bisha 8 sanadka 2020 wararkaani haynana waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Galmudug oo ka digay in la fashiliyo shirka Dhuusamareeb 3 dowladda Soomaaliya oo abaabul dagaal ka bilowday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya duqa Muqdisho oo dhagax dhigay koob lagu xakameeyo biyaha roobka madaxweynihii hore maamulka Hirshabelle oo arrin siyaasadeed ku tilmaamay amni darrada wadada Muqdisho iyo Jowhar wejiga labaad dhismaha wadada Muqdisho iyo Afkooyo oo dib loo bilaabay muhaajiriin ku qulqulaya dalka UK iyo mushkiladda suuqlootiga ee xadka UK iyo France iyo dalxiisayaal Faransiis oo lagu dilay dalka Niger qodobadaas iyo qodobo kale ku soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran subscribe saar channelka kambalka riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe mahadsanid markale kulan wanaagsan aan ku bilaabay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ku sugan dalka Turkiga ayaa u mahad celiyay bulshada Galmudug gaar ahaan kuwa magaalada Dhuusamareeb sida ay u soo dhaweeyeen ufuuti kala duwaneed ee ka qayb qaadatay shirkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb kaas oo ay isku yimaadeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka waxaan u mahad celinayaa reer Galmudug gaar ahaan bulshada caasimadda ee wax ka yar 2 maalmood ku marti qaaday ufuuta federaalka oo ka koobnaa 1,000 qofood iyadoo magaalada aysan lahayn guryo waaweyn iyo hoteelo waxaan u rajeynayaa in shirka kalena ay doorkooda ka qaataan ayuu yiri madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa dalbaday in laga fogaado wax kasta oo lagu fashilin karo shirka magaalada Dhuusamareeb la filayo inuu dhawaan ku dhexmaro madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira hadalkani ka soo yaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa waxa uu ku soo aadiyay xil dhawaan la filayo in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug uu ka furmo shirka Dhuusamareeb 3 kaas oo ay ku kulmi doonaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira dowladda Soomaaliya ayaa waxay abaabul dagaal ka bilowday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Abbas Amin oo ku sugan magaalada Dhuubaydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa halkaasi waxa uu ka bilaabay abaabul dagaal oo ka dhan ah al-shabaab taliyaha ayaa waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuubaydhabo isagoo kala hadlay sidii loo bilaabi lahaa dagaal ka dhan ah al-shabaab taliyaha oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in saraakiisha uu la kulmay uu kala hadlay xaaladda ciidamada iyo sidii loo abuuri lahaa iskaashi wada shaqeyn oo dhexmarta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya gaar ahaan taliska ciidanka xoogga dalka ay ka go'an tahay sugidda amniga guud ee dalka iyo dadgelinta hawlgallada ka dhanka al-shabaab hadalka taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo aadiyay xil dhawaan al-shabaab ay warar ka geysteen saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Daynuunay ee duleedka magaalada Baydhabo markana Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa waxa uu dhagax dhigay koob lagu talagalay in laga dhigo biyo qabad laguna maareyn doono biyaha roobka taasi oo laga hirgeliyay wadada horumarta dugsiga tababarka Sharaalka Haya iyo inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha cad ee magaalada Muqdisho dhagax dhigkan ayaa waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ku weynayay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud Cumar Cali Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basmo Caamir Shirgeedi iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed mashruucan biyo mareenka ayaa waxa loo dhisayaa si casri ah iyadoo loo sameyn doono tuubooyin biyaha geynaya badda maadaama ay muddooyinkan halkaasi ay noqotay koob biyo fariisina xilliyada roobka isla markaana ay tahay marin muhiim ah bulshada degmada Xamarjab iyo sidoo kale garoonka cad ee magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in halkan laga sameyn doono biyo qabad taasi oo loo dhisayo mid biyaha u gudbinaysa badda magaalada Muqdisho roob toddobaadkii la soo dhaafay ee ka daayeen ayaa waxa ay sababeen inay xirmaan qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho kadib markii ay biyo fariisteen wali waxa nagala socotaan warbaahinta xog waran wararkeena kalena waxa kamid ah madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo ka hadlayay falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca wadada xiriirsa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ayaa sheegay inay ku lug leeyihiin arrimo siyaasadeed Cali Cabdullaahi Cosoble madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in waqtigii uu joogay amniga wadadaas ay ahayd mid wanaagsan ha yeeshee haatan aysan mas'uuliyiinta mari karin isagoo uu sheegay inay sabab u tahay arrimo siyaasadeed oo ka jira deegaanada Hirshabelle
aniga waqtigii aan joogay xildhibaanada xilligii ay doonaan ayay hore iyo gadaal u socdeen. haddii ay doonaan inay barnaamij ka dhaqaajiyaan xamar way aadi kareen, laakiin hadda waxa ay noqotay in xildhibaanada xayirmaan ilaa la helo 50 xildhibaan oo diyaarad gaar ah garaysta, ayuu yiri Cosoble, madaxweynihii hore ee Hirshabelle. waxaana uu intaasi ku daray sababaha amni darro ee wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ay tahay mid siyaasadeysan oo lagu doonayo in lagu yareeyo dhaqdhaqaaqyada xildhibaanada badankooda soo aada magaalada Muqdisho. wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ayaa dhowr jeer hore waxaa ka dhacay weerar lagu dilay askar xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle iyo mas'uuliyiin kale. waxaa dib u bilowday wejiga labaad dhismaha wadada isku xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, kaasoo muddo bil ah hakad ku jiray tan iyo markii bishii December sanadkii 2019 weerar isqarxina lagula eegtay Iskandar Afgooye, injineero u dhashay dalka Turkiga oo dhisay wadadaasi. laamiga dhigista wadada ayaa bilowday, waxaana la arkayay shaqaale u dhashay Soomaaliya Turki oo si taxadar leh uga qayb qaadanaya hawsha. waxaana sidoo kale hawshaasi qayb ka ahaa gawaarida lagu talagalay dhismaha wadooyinka laamiga saaraya. dib-u-dhiska wadada Afgooye Muqdisho ayaa marxalad kala duwan soo martay, iyadoo caqabadaha ugu weyn ay ahayd arrimaha amniga oo tir dhow jeer qaraxyo la eegtay shaqaalaha dhisaya wadadaasi. shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa dhisaysa wadada iyadoo ay maalgelinayso dowladda Qatar, waxaana haddii la dhameystiro dhismaha wadadani ay noqonaysaa mashruucii u horeeyay ee lagu guuleysto wadada isku xirta Muqdisho iyo labada Shabeelle. dowladda Qatar ayaa waxay hore u ballan qaaday in dhisayso wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo Balcad, waxaana haddii uu soo gabagabo wadada Afgooye la filayaa inay bilaabato wadada Balcad. jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxa uu ahaa mid burbursan oo dadka isticmaala ay dib badan ku qabeen. sidoo kale wadadan ayaa muhiim u ah isku socodka ganacsiga khudaarta laga keeno gobolka Shabeellaha Hoose iyo badeecadaha ka soo dega degada magaalada Muqdisho. weli xog waran baa nagala socotaan wararkeena caalamkana waxaa ka mid ah 6 ruux oo dalxiisayaal ah una dhashay dalka Faransiiska iyo 2 ruux oo garwadeen u ahaa ayaa lagu dilay beer loo dalxiis tago oo ku taala dalka Niger. gudoomiyaha gobolka Dibari ayaa u sheegay wakaalada wararka Reuters in rag hubeysan oo saaran mootooyin ay qafaasheen kooxda dalxiisayaasha kadibna toogasho ay ku dileen. xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa xaqiijiyay in dadkan u dhashay dalka Faransiiska lagu dilay dalka Niger. dowladda Faransiiska ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan dalka Niger, halkaas oo deegaano badan oo ka mid ah dalkaas ay joogaan ururo daacad u ah ururada Daesh iyo Boko Haram. halka lagu dilay dalxiisayaasha u dhashay dalka Faransiiska iyo 2 ruux oo u dhashay dalka Niger ayaa ah meel lagu xanaaneeyo xayawaanka, waxaana u jirta caasimadda dalka Niger 65 kilomitir. dalka Niger waxa uu xad leeyahay dalalka ay ka mid yihiin Liibiya, Mali, Chad, Algeria iyo Nigeria. hagaag weli waxaa nagala socotaan warbaahinta xog warane. doomo aad u tiro badan oo muhaajiriin ayaa ku wajahan xeebta dalka Ingiriiska intii u dhaxaysay Sabtidii iyo Axaddii la soo dhaafay, waxaana jiray shaqo badan oo loo hayay shaqaalaha xuduudaha Ingiriiska kuwaas oo ka fureegaya xadka UK kadib markii la adkeeyay talaabooyinka xuduudaha ay ka go'aamisay dowladda Ingiriiska. khamiistii la soo dhaafay waxaa la diiwaan geliyay 235 muhaajiriin kuwaas oo ka talaabay kanaalka iyagoo adeegsanaya qaab macmal ah. wasiirka socdaalka UK ayaa waxa uu yiri waxaan la hadlaynaa asxaabteena Faransiiska waana inaan helnaa xal annagoo isku dayna inaan ka hortagno muhaajiriintu inay ka baxaan Faransiiska oo ah wadan ammaan ah. dadka magangeliya doonka waa inay ku faraxsanaadaan inay joogaan Faransiiska, waa meel aamin ah oo daryeela dadka magangeliya doonka ayuu yiri wasiirka socdaalka ee dadka UK. kooxda ay sidoo kale ku jiraan dhowr caruur ayaa waxay sugayeen saraakiisha xuduudaha Ingiriiska inay soo qadaan oo ay geyso gabaad. si kastaba ay ahaataba UK waxa ay dadaal ugu jirtaa inaysan gabaad ka helin dadka magangeliya doonka ee ku soo qulqulaya qaaradda Yurub. guud ahaan intaas ayaan ku saafmeerinaa barnaamijkeennii xog waran iyo maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran, subscribe saar channelka, kambalelkan riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe. mahadsanid.